بسم الله الرحمن الرحيم aad baan salaamaya dhamaantiin meel wala joogtaan walaalkiin mubaarak haadi weedale markale ku soo dhawaada channelkeennii mubaarak haadi mudaan hawada ku kala maqnayn aan ku kala baadnay runtii aadna waan ugu xiisay barnaamijteen idin la wadaagi jiray barnaamijkii fikradii buug iyo weydiin iyo warcelin iyo barnaamijtii kale dhaxtaal ka aha fariimihiina runtii mar walba way soo gaadhaan xanaantiina qaarkiin way soo gaadhaa mubaarak xagee baad ku maqan tahay barnaamij baad noo bilowday maxaad ku maqan tahay way baad noo dhageysanaysaa committee qaar dhahay waan arkay runtii waa dareemaya in ka badan inta aad u xiisteen barnaamijtii aan idin la wadaagi jiray in ka badan baan u xiiseysanahay commentieskeenii quruxda badnaa iyo barnaamijka sida uga faa'iidi jirteen baa runtii qalbigan ku haya aadna waan ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin barakeeyo macna daro kuma maqnayn kolaytina social media Facebook iyo Instagram ka la socota waxaan idin la soo wadaagay toddobaadkii hore buugan qoray in badan idin kamid ah waxay oran jirteen wargo buugaad qortay ma jira buugtan ma af Soomaali u rogtid qaar baa xitaa oran jiray laakiin waxa jiray buugaag anigu gacanta ku hayay qoraalku waa passion-kayga weeyaan waxyaabaan jeclahay uu kamid yahay intaanan YouTube ka soo galin barnaamijtan bilaabin fikradii buug iyo weydiin iyo warcelin iyo barnaamij salamidka gacantan maali jiray oo qoraalkan aad u jeclaa walaw aan si dhayal u qaadan oo waxaan qorayo runtii aan jeclahayn wax tayale ay noqdaan muddan markaa ku hawlana buug garaadsayntaada guursan la yiraahdo oo hadda daawaha saaran mar dhow la daabici doono haddii ilaahay yiraahdo haddana si pre-order loo dalban karayo wargahadi.com buuga muddo 10 sano maskaxdayda ku jiray waxaan u maleynayaa 2000 iyo aakhirka 2011 baa waxaan qoray maqaal la yiraahdo garaadsayntaada guursan oo aan laba qaybood ahaa 10 sano kadib ayuu buuga soo bixi doonaa 2011 2021 aakhirkiisa waa buugan isleeyahay waqtigan geliyay dhinacyadan ka eegay muddada aan qaatay ee aqoonta iyo waayo-aragnimada iyo wax akhrinta bale runtii waa buugan isleeyahay wax badan baa laga kororsan karaa haddii ilaahay yiraahdo buuga sida ciwaanka aan tilmaamayba waxaa la yiraahdaa garaadso intaadan guursan ciwaan hoosaadkiisa waxa weeye hagaha gurdoonka iyo wehelka lamaanaha halka waxaad ka dheehan karaysaa buuga inaanu kaliya ku socon qofka gurdoonka laakiin sidoo kale cid walba ay ka faa'iidi karayso buugu hadaan si kooban u dul cararo 13 chapter buu ka kooban yahay 7 chapter ee ugu horeeya buuga waa qaybta koowaad ee buuga waxaan ugu magac daray nolosha guurka ka horeysa waa qaybtii lagu xogo tusaaleynayay loogu hawaalo waramayay lagu hagayay qof kasta oo gurdoona oo doonaya inuu guursado 7 cutub runtii waqti badan baan geliyay waxa kamid ah cutub halbeega gurdoonka macaayirtii qofka sidoo lamaaniisa ku xulan lahaa cutub waxa jira weydiimihii oo ilaa 32 weydiimood oo aan qaybaha nolosha aan u qaybiyay ay tahay xilliga xasaabaha in looga faa'iideysto hadafka xasaabaha halku ka qaldiyay khaladaadka la galo red flags sida la isaga ilaaliyo waxyaabaha calaamadaha casas qofka marka qarkood ay dhici karaysa inuu ilduufo oo hadhowna saameyn ku yeesha reerkiisa birikamaal waxa kamid ah cutub barashada qofku sidoo naftiisa u baran lahaa inta aanu baran qofka uu la xasaawayo waayo qofka haddii naftiisa aqoon waxa uu doonayo aanu aqoon baahiyaha uu qabo aanu aqoon qiyamkiisa aanu aqoon waxaanu doonaynin aanu aqoon way adag tahay qofka uu nolosha la wadaagayana ama uu la xasaawayana inuu ka eego arrimaha dhinacyada angalka uu ka eego aad bay markaa waa cutub aad muhiim u ah waxa kamid ah talooyinka gurdoonka oo ah talooyin isku xigxiga oo aan kula talinayo qofka gurdoonka inuu qaado si uu lamaanihiisa u xusho cutubyada hore inaasan ka carabaabi karaya buuga qaybtiisa labaad waxaa kamid ah waa qaybta wehelka lamaanaha waa nolosha guurka iyo waayaha ku xeeran marka qaybta buuga waxaa ka faa'iidi karaya qofka reerka hadda guursanaya wali aan reerka yeelan iyo ka reer kale ay ka faa'iidi karayaan maraaxisha guurka uu maro marxalad walba maxaa laga kulmaa maxaa laga filan karaya sidee baa looga gudbaa marxaladaha qaar marxalada dhib badan baa jira oo guurka soo wajaha sanadka ugu horeeya 2 sano ugu horeysa waana xilli ugu badan ee la isfuro waxaa kamid ah kala duwanaanta lamaanaha
kala duwanaanta habfikireed, kala duwanaanta qaab hadal, kala duwanaanta sida mashaakisha loo xaliyo, kala duwanaanta sida dareenka loo cabiro, kala duwanaanta baahiyeed. Waxaan ku xusayaa ilaa 3 baahiyood oo aasaas u ah gabadha iyo 3 baahiyood oo aasaas u ah wiilka iyo aasaas u ah. waxaa buugga kusoo kale ku jira xoojiyaashii guurka iyo principleska iyo tiirarkii guurka, sidoo kale burburiyaashii guurka. waxaa loogu tegayaa buugga xirfado aasaas u ah nolosha guurka, oo hadday maareynta khilaafaadka noqoto, hadday maareynta dhaqaalaha noqoto, hadday wada hadalka toolmoon effective communication noqoto, barbaarinta hadday noqoto. sidoo kale cutubyada waxaa kamid ah cutub aan kaga waramayo casharadii guurka aan ka bartay. marka casharo fara badan oo runtii aan ka bartay guurka ayaan cutubkaana ku jira. marka waa buugan isleeyahay aad buu isu kamilaya. buugan saaxada ka waayey, hadday luqad ingiriisi noqotay, hadday luqa carabi noqotay, iyo hadday luqadeena afkeena soomaaliga noqdaba, buug anigu waan raadinaya weyaan. bariga ugu horeysay aan maqaalka qorayna oo baahi marka anigu aan qabay oon jeclaysanay inaan nolosha guurka wax ka ogaado. buugganna waxa weye waa un kii anigu aan isu qori lahaa weyaan, kii anigu aan jeclaan lahaa guurka ka hor inaan heli lahaa weyaan. marka waxaan isleeyahay waa buug jiilka maanta wax badan ka tari karaya, reeraha isqabaana wax badan guurkood badbaadin karaya, kuwa hadda guurka gelayana wax badan u fududeyn karaya sidii ay u dooran lahaayeen lamaana ku habboon, iyaguna ay ku habboon yihiin, lamaana munaasab ku ah, iyaguna munaasab ay ku yihiin. buugga waxaa lagu soo bandhigi doonaa bishan aakhirkeeda magaalada Istanbul, Ankara hadduu ilaah yidhaahdo, sidoo kale Yurub iyo Ingiriiska, Sweden, meelaha la midka waa lagu soo bandhigi doonaa, Mareykanka, Canada, dhulkeeni barakaysna, Afrikada kale waa iman doonaa insha Allah intaan ka gaarno hadduu ilaah yidhaahdo. inta ka horeysa sidoo kale waxaa laga sii order garaysan karaa si pre-order ah website-ka mubarakhaadi.com, www.mubarakhaadi.com. bisha August 15keeda ayuu pre-orderkiisa furmayaa, laakiin haddaba qofku hadduu sii galo wuu sii dalban karayaa buugga. marka waa buuggan isleeyahay wax badan baa laga kororsan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. inahaasaan maanta jeclaystay inaan bishaarada idinla wadaago, aan channelka kusoo wadaago. barnaamijteennina insha Allah biidhnillaahi albaari markaan safarada ka nimaano dib bay noogu bilaabmi doonaan, iyo bishaarooyin kale aan idiin wadnaba haddii ilaahay biidhnillaahi albaari uu yidhaahdo. aad baan idin salaamayaa. inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli waxaa la akhriyo. waqti waxaan ku noolnahay noloshu aad u xawaareynayso, wax badan isbedelayaan, wax badan in la akhriyo ay tahay. aad baan idinku dhiirigelinayna wax badan wada akhrisaan. buuggan hala akhriyo, hala dalbado. intiina awoodi karaysa inaad website ka dalbataan, intiina kale insha Allah waa idin soo gaari doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. bandhigyo badan baan qaban doonaa. aad baan idin salaamaya, aad baad u mahadsantihiin. ilahi subxana wa taala idin barakeeyo. jazakum allahu khayran. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.